بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله أحبابي في الله، halkan waxaan ka guda geli doonaa darsigeenii shanaad. wuxuuna ku saabsan yahay mubdilaatu sawmi, soomka waxyaabaha uu ku buro, soomka waxyaabaha buriyo ayaan insha allah darsigan kaga hadli doonaa. su-aal caddi tiri mubdilaati sawmi, soomka waxyaabaha buriyo. caddi tiri mubdilaati sawmi, soomka waxyaabaha buriyo. jawaab: mubdilaatu sawmi, soomka waxyaabaha buriyo 10 toban weeye. soomka waxyaabaha buriyo 10 weeye. wahiya tobankaasna midka ugu horeeyo al aklu camdan, kas oo loo cunow. midka labaad waa shurbu camdan, kas oo loo cabo. midka saddexaadna aljimaacu, kulankii weeye. ninkii oo la kulmo zawjadiisii ama meel kaleba, haddiiba jimaacu dhaco soomkii waa uu buraya. fa idaa akala asaa'imu, kii soonnaa haddii uu cuno, aw shariba ama uu cabo, caamidan xaal uu yahay mid intaba kas u samaynaya, aw jaamaca ama uu kulan sameeyo, uu jimaaco, yabdulu sawmuhu, soomkiisa wuu burayaa. amaa idaa akala haddii uu cuno, aw shariba ama uu cabo, naasiyan xaal uu yahay mid soonkiisa hilmaansan, falaa yabdulu sawmuhu, soomkiisa ma burayo. waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam: man nasiya wahuwa saa'imun faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa atcamahu allahu wasaqaah. mutafaqun calayh. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: man nasiya, qofkii hilmaama, wal xaal huwa asiga saa'imun uu sooman yahay, fa akala uu cuno, aw shariba ama uu cabo, falyutima sawmahu, soomkiisa ha dhammaystirta wey. fa inamaa atcamahu allahu wasaqaah, ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey. midka afaraad waxaa weeye tacamudul qay'i, kas oo la isu matajiyo. waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam: wain istaqaa'a falyaqdi, haddii uu iska matajiyo ha qalleeyo soonkiisa. rawaahu abu daawuud watirmidi. kan shanaad waxaa weye al-inzaalu, minadejin weeye, can mubaasharatin, yacni mubaashara, taataabasho lagu minadejiyo. islaantiisii buu taataabtay ama meel kaluu gacantiisii wax la aad-aaday oo markaas sidaabuu intay shahwadii ku kacday buu ku minadejiyey, soomkii waa uu burayaa. aw istimnaa, mina iska baarid, waxay soomaalida u taqaano siigaysi weeye, minuu gacantiisii iskaga raaraadiyey, soomkii wuu ku burayaa. kan lixaad waxaa weeye alxaydu, gabadha iyadoo sooman ayay xayshay, soomkii wuu burayaa. midka toddobaad waxaa weeye annifaasu, dhig dhalmeedkii weeye, soomkii wuu ku burayaa. waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam: alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum. haddii marka maxay iday gabadhii iyadoo sooman ay xaysho, ma soomayso mana tukanayso. waxyaabihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku jawaabay ba ahayd markii la weydiiyey gabadha xagga diinta iyo xagga maxay iday caqligaba maxay uga nusqaansan tahay. marka ka warramuu yidhi: hadday gabadhu xaysho ma tukanaysaa ama ma soomaysaa? mana soomayso mana tukanayso. marka dhankaas nusqaanaa kaga jirto. midka sideedaad waxaa weeye aljunuunu, waali weeye, waa la kala qaadi. haddii waalidu
maalin darafkeeda intuu yacni waalnaado ruuxi uu darafkii kalena uu fiicnaado soonkii kama burayo. laakiin hadday waalida camimto maalintii ramadaanka oo dhan uu iska waalnaado soonkii wuu ka burayaa. fa idaa janna fii nahaari ramadaan, waalida hadday camimto maalintii ramadaanka oo dhan uu iska yacni waalnaado, walxaal huwa asiga saa'imun uu yahay mid sooman, yabdulu sawmuhu soomkiisuu burayaa. midka sagaalaad arriddatu gaalnimadii wey, acaadana allahu minha, allah naga badbaadiye. faman ruuxii irtadda ka laabto canil islaami islaamka faqad afdara, ruuxa wuu afuray wey, soomkii waa uu ka buray. walaa khilaafa fii daalika, arrinkaasna khilaaf kama jiro. midka tobnaad alxuqnu alghadaa'iyatu waa falanbadii quudinta, falanba quudin ah wey. falanbadii qofka asigoo sooman booskii yacni cunidda iyo cabidda inuu ku buuxiyo uu rabo oo sidaas kugu darayo soonkii wuu ka buraya. ama haddii meelihii manfadyaashaha la iska duro saas ay ku gaarto wax la yidhaahdo jawfkii, ayaduna wuu burayaa. laakiin midaanaa lasoo reebanayaa alxuqnu idaa lam takun haddaysan ahayn tuqni mid deeqayso can ilakli cunisti iyo washurbi cabiddi mid ka deeqaysa haddayna ahayn falaa tufdiru ma afurinayso. ama idaa kaanat hadday tahay bimathaabati alakli washurbi booskii cunista iyo cabidda mid buuxinayso, aw kaanat fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay taqdiyatun liljismi quudin yacni jirka la quudinayo, fa innahaa mufdiratun way afurinaysaa. haddiiba aalad yacni jirka uu xoog ku yeelanayo ay ku jirto, ama booskii yacni cunistii cabiddaha lagaga maarma la leeyahay oo inuu jirka lagu xoojiyo loo isticmaalayo, soomkii wuu ku burayaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. darsigeennii shanaadna halkaas insha allah noogu jooga, allaha nagu wada anfaco. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.